Mark Guehi oo tijaabada caafimaadka u maray Manchester City. Mark Guehi oo ahaa kabtanka kooxda Crystal Palace ayaa qarka u saaran inuu ku biiro Manchester City inta lagu jiro suuqa kala iibsiga ee jiilaalka kadib markii uu heshiis buuxa la gaaray kooxda Sky Blues. Manchester City ayaa u dhaqaaqday saxiixa 25 jirkan kadib markii ay dhaawacyo halis ay soo gaareen daafacyada muhiimka ah ee Ruben Dias iyo Josko Gvardiol, taas oo ku qasabtay maamulka inay si degdeg ah u xoojiyaan safka dambe. Sida uu sheegay wariyaha caanka ah ee Fabrizio Romano, Guehi ayaa mar hore dhameystiray qaybtii ugu horeysay ee tijaabada caafimaadka ee Manchester City maanta oo hadda ka hor inta uusan si rasmi ah u saxiixin qandaraaska. Waxaa la sheegay in heshiiskan lagu qiimeeyay qiyaastii 20 milyan oo pound oo lagu daray lacag gunno ah maadaama qandaraaskiisa Palace uu ka dhiman yahay 6 bilood oo qura. Guehi ayaa bartilmaameed u ahaa dhowr kooxood oo waaweyn sida Liverpool, Arsenal iyo Bayern Munich, balse City ayaa ku guuleysatay tartanka loogu jiro xiddiga reer England tan iyo markii uu Palace kaga soo biiray Chelsea sanadii 2021. wuxuu u saftay 188 kulan isagoo xil ciyaareedkii hore kooxda ku hogaamiyay koobka FA Cup-ka oo ay ka qaadeen isla Manchester City. Manchester City ayaa si firfircoon u sii wada shaqadeeda suuqa kala iibsiga, iyadoo Guehi uu noqonayo saxiixoodii labaad ee bishan kadib Anthony Semenyo oo ay 62 milyan kaga soo iibsadeen Bournemouth. Sidoo kale kooxda ayaa dib ugu yeeratay daafac yar ee Max Allen oo amaah ugu maqnaa kooxda Watford si uu u caawiyo kooxda xilligan ay dhibaatada dhaawacyada ku jirto. Dhinaca kale, taageerayaasha Real Madrid oo codsaday in xilka madaxweyne laga eriyo Florentino Perez. Garoonka Santiago Bernabeu ayaa laga dareemay jawi kacsanaan ah iyo carab baahsan oo ay muujinayeen taageerayaasha kooxda Real Madrid, kuwaas oo kor u qaaday codkooda iyagoo dalbanaya inuu xilka ka dago madaxweynaha kooxda Florentino Perez. Sida ay sheegayaan warbixino dhowr ah, taageerayaashii ku sugnaa Santiago Bernabeu ayaa ku dhawaaqayay Florentino iscazil intii ay socotay ciyaartii ay la lahaayeen kooxda Levante ee wareegga 20aad ee horyaalka La Liga. Kaamirooyinka ayaa qabtay Perez oo dhoola cadeynaya xilli ay taageerayaashu ku qeylinayeen magaciisa, isagoo markaas ku sugnaa qaybta VIP-da ee garoonka. Mudaaharadadan ayaa ku soo beegmay xilli adag oo ay kooxdu marayso xil ciyaareedkan kadib guuldarooyin isxigxigay oo ay ugu muhiimsaneyd guuldaradii ka soo gaartay kooxda Barcelona koobka Super Cup-ka Spain, taas oo keentay in maamulka uu eriyo tababare Xabi Alonso. Xaaladdu ma soo reyn wixii intaas ka dambeeyay, iyadoo Real Madrid laga reebay koobka boqorka Copa del Rey iyadoo uu hogaaminayo tababaraha cusub ee Alvaro Arbeloa. Tani waxay sii kordhisay carrada ka dhex jirta taageerayaasha, waxayna albaabada u furtay dhaleeceyn xoogan oo loo jeedinayo maamulka kooxda iyo siyaasadaha ay ku hagayaan naadiga xilligan. Maalin wanaagsan saaxiibayaal, intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa warbixintii koobneed ee nagu hadlayay wararkii ugu dambeeyay ee kubadda cagta. haddii aad ila dhamaadka muuqaalka la soo gaartay ay leeyahay inaad muuqaalka like saarto sidoo kalena sii share gareyso. haddii aad nagu cusubtaan ugu soo biiro ka mid noqo asxaabta nagu xiran. mahadsanid.